wafdigan ka socda midowga Yurub ee maanta soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxa hogaaminaysa gaalka u qaabilsan midowga Yurub arrimaha Soomaaliya Michael Carafon oo dhawaan loo soo magacaabay arigayga midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya waxa uu xarunta madaxtooyada Puntland kulan kula yeeshay madaxweynaha dawladda Puntland ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole waxaana laga wada hadlay wada shaqaynta EU-da iyo Puntland ee arrimaha Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo hadal kooban oo warbaahinta siiyay ayaa qeexay waxyaabaha ay ka wada hadleen maadaama dalka Soomaaliya dawlad federaal ah laga unkay soo booqday magaalada Garowe xarunta Puntland wafti ka socda European Union oo madax ka yahay safiir cusub oo lagu bedelay safiirkii hore Kel Jervoni waxay noogu yimaadeen inaan bal wixii Soomaaliya ka socda aan iska wareysano iyo baarlamaanka nin cusub yahay isbarasho iyo xiriirkii aan la lahayn oo adkaa oo aan la lahayn midowga Yurub inaanu si adkayno meeshii shirka sii wadno baarlamaanka Soomaaliya waqti cusub ay ka bilaabatay siyaasad cusub oo dawlad cusub la dhisayo in xiriirkaas la sii adkeeyo ay Puntland la leedahay inaan iska xog wareysano waagaan cusub oo Soomaaliya ka socda sidii Puntland qaybteeda uga qaadan lahayd midowga Yurubna oo qaybtiisa uga qaadan lahaa waagaan cusub iyo caqabadaha imaan kara oo aan wax iska tusnay oo ay ka mid yihiin amniga adkeyntiisa horumarinta mashaariicdii ay awalba dalka wada jireen dhammaantiisba xukuumadda cusub oo xamar ka dhalatay iyo waaga cusub oo Soomaaliya wixii wanaagsan oo laga filayo iyo say u taageeri lahaayeen intaba arrimahaas oo dhan baa ka wada hadalnay waxaana aad iyo aad u soo dhaweynaynaa siyaarada tan ay noogu yimaadeen annagoo ka filayna madaxda cusub oo xafiiska timi iyo dadka kale oo la socda oo ka socda hay'adaha European Union ka shaqeeya qaybaheeda kala gedisan xagga humanitarianka iyo xagga mashaariicda horumarineed iyaguna waagaan cusub ay la ambaqaadaan inay intii hore ka sii badiyaan ama ay Soomaaliya hadda ay galayso waqti ay ka baxday waqtiga ku meel gaarka ah ku meel gaarka dawladda dhan baa ka baxday anaga laftigeeyo ku meel gaarka waa ka baxnay markii dastuurka iyaga la ansixiyay bishii April oo la soo dhaafay dawladda dhexe ay ka baxdeen annana waa kala baxnay oo wixii macaawina waxaan rajaynaynaa hadda ka bacdi in xoogooda ay kala xiriiraan hay'adaha dawliga halkii la marin lahaa hay'adii awal la marin jiray baan rajaynaynaa insha Allahu tacaala socodkuna waa badan doonaa dib iyo haddaba wixii ka dambeeya la yimaado waxyaalaha ka hadalay kala way xafiiskooda halka ku yaalin kor loo qaado oo la gaarsiiyo levelka hadda uu joogo levelka sareeya si aan wada shaqaynteeyo oo adkaato waxaan rajaynaynaa waa cusub iyo xiriir cusub oo kii hore ka sii xoog badan loo bilaabo Michael Carafon oo qaabilsanaha arrimaha midowga Yurub ee Soomaaliya oo dhankiisa la hadlay ayaa sheegay warbaahinta inuu ku faraxsan yahay kulanka maanta la yeeshay madaxda Puntland ayna ka wada hadleen arrin qusaysa EU-da iyo waliba Soomaaliya the government of Puntland. I also praise the president for the progress done in Puntland in terms of democratization, especially with the approval of the new constitution. I also thank the president on his role and the role of Puntland in ending the transition process. We are here in a new chapter, a new page. kulankan maanta dhex maray midowga Yurub iyo Puntland ayaa u muuqda sidii looga wada shaqeyn lahaa xaaladda Soomaaliya ayna hagaajin lahaayeen midowga Yurub doorkooda kaga aadan Soomaaliya. Cali Cabdi Casiis, Home Cable TV, magaalada Garowe.